daahfurka ururka horumar iyo midnimo qaran ee maanta waxay noo furaysaa bog cusub oo siyaasadeed. waxaa noo bilowday halgan cusub oo ah inaan ka qayb qaadano doorashooyinka qof iyo codka ah oo la filayo inay dalka ka qabsoomaan, taas oo shacabka Soomaaliyeed u oggolaanaysa inay helaan xuquuqdooda siyaasadeed, xuquuqda ugu weyn ee shacabka waa inay doortaan cidda hogaaminaysa. waana tirka dowladnimada iyo cadaaladda in talada dalka lagu dhiso rabitaanka shacabka iyo danahooda. waa ujeeddada ugu muhiimsan ee ururkan loo asaasay. waxaan ognahay caqabadaha hor yaalla, balse waxaan aaminsannahay in rabitaanka shacabka ay ka xoog badan tahay caqabad kasta. rajada marka lagu daro ficil waxay isu beddeshaa awood aan la hor istaagi karin. mudanayaal iyo marwooyin, waayo aragnimadu waxayna bartay isku duubni la'aantu inay lumisay fursadaha horumarka dalka. haddii aan noqonnay ummad mashquul ku noqotay khilaafaadkeeda gudaha iyo isqabqabsigeeda, la waayay cod midaysan oo qaran, waxaan luminaynaa fursado badan oo aan ku dhisi lahayn horumarka dalkeena iyo dadkeena.